بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan salaamo salaamullah waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu ahaa salaamo inta dhageysato TV-ga qaranka iyo inta ka shaqeyso Ramadaan al-Kariim waxaan kaloo jecelahay inaan si gaar ah u salaamo ardayda Soomaaliyeed sanadkan dugsiga sare ka qalin jibinayso waxaan rabaa inaan ku amaano ayaga iyo waalidiinteedaba shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen sanadihii la soo dhaafay ugu diyaar garoobeen imtixaanka maalmahan ka bilowday magaalada wadanka oo dhan meel kasta uu yahay waxaan rabaa inaan idla wadaago xog aad ogtihiin inta badan maalmahan imtixaankii socday waxaa caddaatay in imtixaankii uu banaanka u baxay internetka iyo social mediaha meel walba uu yiilay saddexdii maalin oo lasoo dhaafay oo ay maanta ugu dambeysay imtixaankaas wasaaradda iyo howlweedanada wasaaradda runtii shaqo aad iyo aad u wacan ayay qabteen waxaa aad loo adkeeyey in imtixaanku xafidnaado laakiin waxaad la socotaan in imtixaankii uu banaanka yimid waxaa isweydiin leh sidoo banaanka u yimid imtixaankan waxaa lagu qaadayay qiyaas ku dhow 100 goobood oo wadanka u baahsan oo inteeda badan ay magaalada Xamar tahay magaalada Xamar imtixaanka meel xafidanna waa yiilay gacan u dhaxayso meesha laga soo qaaday iyo ardagana ma uusan jirin waxaan aad ugu qanacsannahay in magaalada Xamar oo 80% ardayda imtixaanka gashay ay joogto in aan imtixaanku meeshaas ka bixin wasaaradda dadaalada badan ay qabteen waxaa ka mid ahaa in imtixaanada la gaarsiiyo meelaha fogfog meelaha qaarkood oo 18 arday jirto ay intaan diyaarad ku qaadno aan baawur sii raacno ayaan geynaa meelahaas markuu imtixaanku tagaayo waxyaalaha aad loogu tiirsan yahay waxaa waaye damiirka iyo shakhsiyadda qofka imtixaankaas wado inta badan dadka imtixaanka noo qaaday waxay ahayn shaqaalaha wasaaradda oo weliba qaarkood aan aad iyo aad ugu kalsoonnahay intooda badan waxaa kaloo ka mid ahaa shaqaalaha jaamacadda ummadda ka shaqeeyo iyo shaqaalaha dalladaha qaarkood ee taariikhda dheer imtixaanaadka u leh oo kalsooni badan lagu qabay nasiib darro hal goob oo 100kaas goob ka mida dadkii imtixaanka lagu aaminay waxay go-aan gaareen inay imtixaankii banaanka dhigaan dadkaas hay-adaha amniga ayaa qaarkoodna gacanta ku haya qaarkoodna ku daba taagan hay-adaha amniga waxay dhex galeen whatsappyada waxa lagu qaybinayo ayay qeyb ka noqdeen waxayna soo ogaadeen meelaha laga qaybiyo dadkii qaybinayana qaarkood waa la hayaa qaarkoodna waa lagu daba taagan yahay laakiin marnaba wasaaraddu kama jiifan in shaqo wacan oo hufan ummadda Soomaaliyeed loo qabto imtixaanku muxuu muhiim u yahay midaysan waa meesha adduunkuna nagu qiimeynayo annagana aan isku qiimeynayn waa meesha dadaalka ardayga uu ku caddeeyo inuu diyaar garoobay oo mataqaanaa u diyaar garoobay inuu ama heer jaamacad u gudbo ama heer shaqo u gudbo waa meel marnaba aanan suluug inay ka timaado aanan wasaarad ahaan ogoleyn wixii kalifay inuu banaanka la geeyo imtixaankaas ilaa hadda waxaan ka sugaynaa hay-adaha amniga inay soo caddeeyaan oo aan runta aad ugu kalsoonahay inay wax la imaan doonaan haddii aan la socdo howlaha ay wadaan haddii ay ganacsi tahayna dadka ka ganacsanayay gacanta ayay soo gelayaan
kol dhowna waxaa arki doontaa iyagoo maxkamad taagan. hadday siyaasad tahayna waa fashilmeen, maxaa yeeley lama siyaasadeeyo waxbarashada. meel kastoo adduunka laga joogo in la siyaasadeeyo waxbarashadana iyada laftirkeeda siyaasad xumo ah. wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaagga waxbarashada ah, waxay wasaaraddu go-aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado. maxaa yeele macquul ma aha imtixaan saddex maalina imtixaanku socday, 6 maadana waa la qaaday, 6daba suuqa yiilan, hal meelayna ka wada imaanahay. macnaha 90 iyo dheeraad goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen, laakiin goobaa go-aan waxay gaartay inay fashiliso. meelaha qaarkood waxaad la socotaan in lacag lagu kala qaadanayo. waxay aad nasiib daro in imtixaanka ummadda soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qofkan guri ka raadiyo weliba bil ramadaan, aaday nasiib daro u tahay. waxaa nasiib daraa in waalidiintii qaarkood ay ka qeyb galeen iibinta imtixaanaadkaas. waxaa nasiib daraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynayo inuu soo gatay imtixaan. haddaba wasaaraddu waxay go-aankaasi gaartay imtixaanka berito ma jiro, kuwii hore loo qaadayna waa la baaba'shay. imtixaan jiro ma aha. haddii eebbe idmo imtixaankaas dib aan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27 bisha, wuxuuna socon doonaa ilaa 31 bisha, 5taas maalin uu socon doonaa. wasaaraddu waxay ku tala gashay markan inay sidii hore si ka duwan oo ka adag ay imtixaanka u qaado. waxaa markan suurogel noqon doono 5taas maalin inaan wax social media waddanka uusan ka shaqayn doonin. ardaygu waa inuu aqoontiisa oo banaanka la yimaada. ardaygu waa inuu 4 sano ee dugsiga sare wuxuu soo qabtay oo shacabka soomaaliyeed iyo adduun weynaha usoo bandhigaa. waa ceeb arday daba ordaayo oo maanta oo dhan ku mashquulsan iyo ganacsade damiir ka dhumiyey ee raba inuu kaa lacagtiisa qaato. waxaa isweydiin leh, ardaygiyow hadda imtixaankii waa la baabi'iyey, lacagtaadi intay ka doonanaysa? nacasaa tahay haddaadan lacagtaadi doonan oo aadan soo bandhigin qofkii lacagta kaa qaatay ee kuu sheegay imtixaan aad ku nabadgelaysid ayaan kuu hayaa. tuug bow ahaa, wuu soo xaday imtixaanka, wax la soo xadow kaa gaday. maanta wixii la soo xaday dibay u noqdeen. lacagtaadi waa duudsi. waa inaad lacagtaadi doonataa. waa inaad hay-adaha amniga u sheegtaa qofka lacagta kaa qaatay. qofkii wasaaradda yimaado ee keena qofkii lacag ka qaatay, wasaaraddu waxay u ballan qaadaysaa lacagtiisa inay u celiso. qofkii wasaaradda yimaado ee sheego ciddii lacagta ka qaadatay iyo meesha looga qaatay iyo sidii looga qaatay, waxaan u ballan qaadaynaa wax abaalmarin inaan siino. waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo in imtixaanku uu dhici doono 27 bishan, uu socon doono ilaa 31 bishan. waxaan rabaa inaan la dardaarmo waalidiinta. inta imtixaanka socday waxaan aragnay waalidiin taleefano u wada ilmahoodii imtixaanka fadhiyay. wax laga xishooda way waxaas. hay-adaha amnigu uma dul qaadanayaan waarid goobtii imtixaanka taagan ee taleefon qish lagu wada la taagan. waalidkii yimaado meel imtixaan lagu qaadayo, waxaan u sheegaynaa inaan loo dul qaadanayn. caruurta in lagu soo kabnaado, wax lala baro, macalimiin zaa'ida loo qabto, dariiqaas waa dariiqa saxa. laakiin in lala dabo ordo taleefon lagu wada muxuu ahaa imtixaan qisha, wax laga xumaado wey. ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay aaminaan dadaalkooda,
waa hubaa intooda badan dad nadiifa oo dadaalay oo waxbartay oo fursad raadinaya ay waxbarashadooda kusoo bandhigaan inay yihiin. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastoon joogno inaan u ictiqaadno imtixaanka qaadadiisa iyo imtixaanku inuu yahay amniga qaranka uu ka mid yahay. maxaa yeele waxaan difaacayna waxaa sharafta waddanka iyo qiimaha ardayga uu leeyahay. waa mahadsantihiin, wabillahi towfiiq.